السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال إذا لهانتين بميل كسو دافع عالم كجوجتان aad baan idin salaamana halkan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay Yol TV oo laba kala socotaan barnaamijyo mugiyo miisaan leh hadaba barnaamijkan caawana waa barnaamij la yiraahdo badbaadi afkaaga hooyo aan alaaba oo luqado qalaad lagu hadlo bal hadaba kelmadahaas ayaan weydiinaa dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer daawasho wanaagsan soo dhawo walaal barnaamijka su'aalaha Yol TV ee barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo waan dhawey saaxib aad iyo aad walaal barnaamijkan uu ku soo dhaweynaya marka koowaad magaca Safwan oo su'aashan ku weydiinay waxay koranaysaa waxa jira kelmado fara badan oo English laakiin ifriideen isticmaalo oo aan English ku isticmaalo bal Soomaali haddii aan kugu weydiiyo mobil maxaad Soomaali u taqaanaa mobil deewaanida way mobil adiga ku mobil haddii bal waa English mobil waa English moogtahay haddii lagu Soomaali af Soomaali kelmad Soomaali ku sheeg maxaad bixin lahayd telefoon oo English تلعب سلاح دابا تا وحنا ملوه ادو باas ku dhaw magaca عود walaal waxa jira kelmado fara badan oo maalin kasta isticmaalo oo luqad qalaada waxa kamid ah mobil Soomaali nagu sheeg mobil Soomaali wallahi ku garamo hadii lagu Soomaali maxaad bixin lahayd waxaan bixin lahaa Somki waa English Somali Somali كذا Somali ku habboon mool ku habboon كذا Somali ku habboon wallahi waxa la bixiyo aad ma saaxiib walaal ku soo dhawo barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo walaal Axmed Balayd Axmed Faarays Axmed walaal ku soo dhaweynaya waxa jira walaal kelmado fara badan oo maalin kasta isticmaalo luqad qalaad jira waxa kamid ah mobil hadii lagu Soomaali u bixin maxaad bixin lahayd waxaan oran lahaa loo bixiyo warskaarsiye marka waa warskaarsiye oo soo qabto baran lahayd wax ka aad ma santahay Axmed walaal ku soo dhawo barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo oo ka tagnaaba magaca Yusuf walaal waxa jira kelmado fara badan oo English ah jira luqada qalaad ah maalin kasta ku hadallo marka waxa kamid ah mobil hadii lagu Soomaali bixin maxaad bixin lahayd afaf Soomaali badan baan u bixin lahaa midba kuma soo koobeen maxaad u bixin lahayd waxaan u bixin lahaa ku hadal soo dhaweeye aydiye dabadan u qaban lahaa ma wadaada aad ma santahay aad magacyada mid kamid meel soo bixi doona insha Allah oo TV-ga magaciisa Yol TV wala Yol TV horeyna isku arag ku soo dhawo walaal barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo waa ku dhawo walaal magaca waxa la Mustafa Ibrahim walaal waxa jira kelmado fara badan oo maalin kasta adeegsanaa jiraan ku hadallo luqada qalaada waxa kamid ah mobil hadii lagu Soomaali ku sheeg maxaa ku sheeg lahayd bixin lahayd waxa mobil hadii la yahay Soomaali ku sheegay waxaan bixin lahaa hawl fuday waxaan kala bixin lahaa warskaarsiin aad ma santahay ku soo dhawo walaal barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo walaal ku dhawaay magaca Jibriil Maadile waad baan ku soo dhaweynaya walaal su'aashan ku weydiinaya waxay koranaysaa waxa jira kelmado fara badan oo maalin kasta isticmaalo oo luqado qalaad ah kelmadaha waxa kamid ah mobil maxaad bixin lahayd ana waxaan u bixin lahaa xog isgaarsiin ayaan u bixin lahaa aad ma santahay ku soo dhawo walaal barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo ku dhawo magaca walaal Abdikariin walaal waxa jira kelmado fara badan baa jiro maalin kasta isticmaalo adeegsano ku hadalaa jiro laakiin luqada qalaad waxa kamid ah simikaad hadu bixin lahayd simikaad Soomaali simikaad waa dhow fudadeeye ka hadii la magac bixin lahayd magacyo badan baa jira sax marka dadkeenna Soomaalida hadba waxba yaqaanaa marka waa dhaweeyo ku hadal oo waxa sunde aad ma santahay soo dhawo walaal barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo oo ku dhaweey saaxiib magaca Maxamed walaal Maxamed walaal waxa jira kelmado fara badan oo maalin kasta ku hadalaa jiro laakiin luqad qalaad ah kelmadaha waxa kamid ah mobil hadii lagu afkeena Soomaaliga noo shaxay magac u bixin bixin lahayd waxaan bixin lahaa harta laba mobil harta mid waa dhiiqlaniyo kaas waa dhiiqle midna waa salaaxo orayna salaaxo bixin lahayd soo dhawo walaal barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo walaal magaca Axmed Abdurrahman walaal su'aashan ku weydiinaya waxay koranaysaa waxa jira kelmado fara badan oo maalin kasta ku hadallo oo adeegsano laakiin luqada qalaada waxa kamid ah mobil waa English Soomaali af Soomaali maxaad bixin lahayd
ni horta dayacan Soomaaliga uu haysta guud ahaan ereyo dayac Soomaaliga haysta badahan guud ahaan marka waa dhibaato horta haysta afka Soomaaliga xataa ereyo badan Carabi iyo ereyo badan English gaariyo kale gaar Soomaali ma waa Hindi marka waxa jira mobile oo kale uu Soomaaliyeey baa la oranayo waxa jira ereyada qaar marka hore ahaa luqadda laakiin marka luqadda Soomaaliga yimaadeen luqadda noqday kamid noqday marka ma jirto waxa loo qaadanayaa mobile noqday misaal kale internet oo kale Soomaali looma hayo marka hadii adiga mobile maxad waxa isku day mobile waxaan filahay tani mobile ma ku din laan way Soomaaliyeed ma oran laan aad ma satay odayga nabdi walaal ku soo dhaw barnaamijka badbaada afkaaga hooyo وانتو لو وران magaca مولود محمد جعالي مولود waxa jira walaal kelmado fara badan oo in maalinka adeegsanaa jiro ku hadallo laakiin luqada qalaada waxa kamid ah mobile af Soomaali maxad bixin lahayd loo magac bixin موبيل في الصومال هدان وبخيغا waxaan bixin lahaa taar taar bixin lahayd taar baan ama dhabaal baan bixin lahaa dhabaal aad ma santahay dunya waxa sheegtaa walaal waxa jira kelmado fara badan oo Soomaali luqada qalaada jira laakiin maalinka ku hadallo mobile baa kamid ah mobile maxad bixin lahayd mobile ka caadiga isticmaalo magac af Soomaali bixin lahayd dee waxaan bixin lahaa ilaahadan kula hadlay يا waxay ma bixin lahayd والله ما هي aad ma santahay ku soo dhaw walaal barnaamijka badbaada afkaaga hooyo walaal waan ku dhawaad aad magaca Cabdiraxmaan Kiisaan Cabdiraxmaan walaal su'aasha aan caawid dadweynaha magaalada Burco weydiinaya waxay ku oranaysaa waxa jira luqado fara badan ee maalin kasta ku hadalaa jiro laakiin luqada qalaada waxa kamid ah mobile afkeena hooyo maxaad u taqaanaa ma bixin lahayd loo wadaan anu taas ku day waxaan u bixin lahaa soo dhaweeye ama fududeeye magac kale ma bixin lahayd ya واسلم magacyadaas unde aad ma santahay walaal ku soo dhawo barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo waan ku dhago walaal magaca Cabsaaq walaal waxa jira kelmado fara badan baa jiro inuu maalin walba xilli walba ku hadallo laakiin luqada qalaada jira waxa kamid ah simikaad dilka Soomaali maxad bixin simkaar wallahi garan ma jawaabta ma garanay mobile maxad bixin lahayd mobile waxaan u bixin lahaa aleen baan bixin lahaa aleen maali maya ku soo dhawo barnaamijka badbaadi afkaaga hooyo warwaniga ku agtahay inaan ku dhow magacaasa kambaalo walaal su'aasha aan caawid dadweynaha magaalada Burco weydiinaya waxay ku oranaysaa waxa jira wato maalin walba waxaan ku hadalaa luqad qalaad baan ku hadalaa oo marka luqadaha aan ku hadalaa waxa kamid ah mobile oo kale waa luqada qalaad dadka Soomaali maxad bixin lahayd Soomaali dhagax baan bixin lahaa dhagax magac kale dhig sagaashan lagu hayo meel kale la saara ayimka odaygu odayga dhig taaydi ma fahmayo magac la fahmayo inaan waxa loo xanu bixiyo wixii markii hore gaalbayna la soo doonto garanaysa isagaana ula soo baxay magac reesam Soomaali garaysta dan waxaan oran lahaa dhagax telefoon iyo telefoon English ba kabalo mikaad mobile صح waxaan isku dayaa mobilka luqadda horta mobilka waa English markaas hadaan si xaqii luqadeena u beeranaysa oo kale Soomaaliga ku sheeg waxaan ku sheegi la koor aad ma santahay taawada inta waxaan ku soo afmeerinaa laba su'aalood oo caawa magaalada Burco wax weydiinay labada su'aalood oo kala ahaa mobile iyo simikaad oo lagu sheegay luqadda Soomaaliga tin halkan waa barta YouTube kan ku leenahay AYOL TV oo laba kala socotaan barnaamijyo xiiso leh